السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay saakay waa subaxnimo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Janaayo sanadka 2026 haddaba qodobada barnaamijkan idinku hayno waxa kamid ah adduun waa soo xumaaday waxa la sheegayaa in la gaaray xilli mar kale dawladuhu ay gumaystaan mid walba mid ay ka xoog badan tahay haddaba xilligii gumaysiga ayaa mar kale ififaalihiisu muuqda ayaa la leeyahay kadib markii la ogaaday xog sira oo ku saabsan heshiis gaara oo dhex maray Mareykanka iyo Ruushka oo iyagu ah dawladaha ugu quwadda badan caalamka haddaba yaa la kala qaybsan rabaa xagee loo socdaa sheekooyin cajiib ah ayaan arrinka idinkaga hayaa waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa gabadha madaxweynaha ku meel gaarka ka ah Venezuela oo Mareykanka u dirtay fariin Trump waxay sheegtay dhagahaaga geli amiil halkan kama shaqeynayo ama daba dhilif aad soo magacaabatay wadankan ma maamuli doono haddaba sidee wax u jiraan arrinkaas iyana barnaamijkan idinkugu hayaa Aydruus Az-Zubaydi oo ah ninkii ka shaqeynayay in la kala gooyo dalka Yemen oo Imaaraadka taageero ka helay oo la sheegay inuu si qarsoodi ah uga baxsaday dalka Yemen iyo wararkaasi imika ay soo dhacayaan wararkaas ayanu barnaamijka ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno wixii warar ay soo kordha asxaabay waan idin la socodsiin si wanaagsan markale asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Janaayo sanadka 2026 barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dalka Yemen haddaba ninka la yiraahdo Aydruus Az-Zubaydi oo hogaamiya kooxda STC la yiraahdo ee gooni u goosadka dalka Yemen ayaa waxaa la sheegay in uu ka baxsaday halkaas iyadoo marka hore uu sheegay in uu markaa u baxayo dhanka iyo Sacuudiga hase ahaatee waxaa la sheegayaa imika inuu dhuuntay oo la waayay meel uu ku dhuuntay waxaana la aaminsan yahay qaarkood wararka waxay sheegayaan inuu iskaga cararay dalka Yemen halka qaar kale ay sheegayaan wali meelo kamid ah Cadan iyo nawaaxigeeda inuu ku dhuumanayo haddaba wararkaas ayaa soo baxay waxaana sheegayaa waana jabkii ugu xumaa ee soo gaara kooxda uu hogaaminayay markii Sacuudiga iyo ciidanka dawladda taageera ee dalka Yemen ay dagaaladii dhacay kaga adkaadeen fakarkoodii gooni isu taaga iyo gooni goosadka dalka Yemenna ay meesha ka saareen haddaba xeer ilaalinta guud ayaa raadinaysa ninka oo dambiye lagu soo oogay oo markaa ku saabsan in uu ka shaqeynayay hagardaamaynta dalka iyo waliba dhibaataynta midnimada wadanka Yemen haddaba ninka waxaa la sheegay imika in la la'yahay haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekooyinka laga qoray haddaan idin la wadaago waxaa la sheegayaa telefishinka Al Jazeera wuxuu qorayaa isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ayaa waxay sheegeen inuu cararay ninka la yiraahdo Aydruus Az-Zubaydi haddaba xagee aaday Aydruus Az-Zubaydi xaguu u baxsaday haddaba wararkii ugu dambeeyay iyadoo arrinka laga hadlayo waxay leeyihiin su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa masiirka iyo meesha uu ku dambeeyay ninkii madaxda u ahaa golaha kumeel gaarka ee koonfurta ninka qolaha marka la soo gaabiyo loo yaqaan STC Aydruus Az-Zubaydi iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in ninka uu ka baxsaday oo uu cararay haddaba isbahaysiga Sacuudiga hogaaminayo ayaa xaqiijiyay Aydruus inuu cararay meel aan la ogeyna uu u baxsaday oo ay markaa baaritaan ku hayaan Sacuudiga iyo isbahaysiga waxaana la sheegay in 48 saacadood markii ay markaa ka soo wareegatay markii la sheegay inuu Sacuudiga kula kulmi doono ninka madaxda u ah golaha ee la yiraahdo Rashaad Al-Caliimi ra'iisul wasaaraha ninka la waayay sida wararku ay sheegayaan waaye marka warkaasu marka waxaan leeyahay ninka waa la waayay waa tahay marka ninka marka waxaan leeyahay wuu cararay oo wuu baxsaday xagee u baxsaday qaar waxay leeyihiin wali wuxuu joogaa Yemen gudeed laakiin sheekada la yaab kale waxa waaye nin marka isagu ka tirsan golaha la yiraahdo golaha dhaqdhaqaaqa koonfurta
ayaa waxaa la sheegay ninkaa magaciisa oo lagu magacaabo Xuseen Bahamiil inuu sheegay in markaa ay aaminsan yihiin inuu u cararay Aydruus Az-Zubaydi dhanka iyo Somaliland inuu u cararay. haddaba arrinkaasi marka waxaa la sheegayaa in wararka qaar ay leeyihiin ninkan waddanka wuu ka baxsaday, laakiin ninkan golaha ku jira Xuseen Bahamiil la yiraahdo inuu leeyahay ninkaa wuxuu u cararay dhanka iyo Somaliland. waa sheeko kale oo waalan. arrintii Yemen iyadana lagu soo riixaya oo la leeyahay Somaliland oo ninkii gooni ugoosadka ka shaqeynaya u soo baxsaday imaaraadka qoladii uu taageeray ninkii madaxda u ahaa waay Aydruus Az-Zubaydi la yiraahdaa. haddaba sheekooyinka ayaa marka socda ninka arrintiisa ku saabsan wixii ka soo kordha waa arki doonaa. arrinta ugu muhiimsan barnaamijkayaga maanta wuxuu yahay xilligii ama casrigii la isgumaysanayay isticmaarka ayaa wuxuu u muuqdaa inuu ku soo laabanayo dunida. markii la arkay ififaalaha sanadihii ugu dambeeyay dalku ka xoog badan yahay inuu intuu ku habsado wuxuu raba sameeyo, cid uu markaa wax ka weydiinayo aanay jirin. marka waxaa leeyahay dowladihii kale iyaguna mid walba midka kale uu ka awood badan yahay ayuu ku habsan doonaa, uu gumaysan doonaa. marka wixii laga soo tagay ayaa hadda soo noqonaya leeyahay casrigii isticmaarka ee markaa dowladaha la gumaysan jiray. adduunyadii marka waxay dib ugu noqon doontaa in la isgumaysto, nin walba ninkuu ka xoog badan yahay uu gumaysto. haddaba marka arrinkaa maxaa loo leeyahay? waxaa leeyahay marka waxay muujinaysaa arrimo soo baxay oo la sheegaya in ruushka ninka la yidhaha Putin iyo Trump iyo ay ku heshiiyeen arrin la yaab leh. adigana in beesha gumayso oo qabso, anigana halkaana qabsanaya oo cad ayaa lagu heshiinayaa. marka adduunkii sidaasuu isku bedelayaa. marka la socda ilaahuna mooti waayo. haddaba aan idin tuso telefishinka Al-Jazeera ayaa wuxuu leeyahay isagoo wax ka qoraya sheekada ku saabsan arrinkan. wuxuu leeyahay jirada la yiraahdo New York Times ayaa shaacisay ruushka inuu u soo bandhigay Mareykanka inuu qabsado dalka Venezuela, isagana uu qabsado Ukraine oo aan laga daba hadlin. official waxa leeyahay ruushku wuxuu yiri Venezuela iska dhub. Venezuela shidaalkeedii waxay ruushkaaga ma daba hadli karo, ma cid ku imaanayso male, waxaaga ninka waddanka qaado. anigana Ukraine aan iska biyeysana yaan la igu imaanin, anna Ukraine aan qaadana adigana halkaa qaado. hadda marka waxa leeyahay ififaalo sidii u muuqda. Trump wuxuu ku doodayaa ninkii Ukraine ka madaxweynihiisa dhulkan ha qaato ruush, dhulkaagii ruush qayb ka mid ah ha qaato, adi ma ka hadli kartid. inaa u saxeexdo waa heshiis nabadeed saa u qaadad. ma dhahayo ruush ka bax waa gar daran tahay dhulkan Mareykan ma dhahayo. sababtoo ah meesha waxaa leeyahay marka cilaaqa hoosaa jirta. warniyow adiga intaa qabso, adigan intaanaa qabsanaya khalaas. cid marka cid kale wax ka hadli karta male. waa ku duule waa qabsaneen bis, wax kala hadli kara male. maxay samaysay markii Bashar al-Assad uu baxay Israa'iil? suuriya ku duushay Dimashq agteeda buur la yiraahdo buurta Sheekh ayay ku habsatay. xagee u soconaayeen? meel u socono male. wabiga Niil ilaa wabiga Furaad dhulkaas annagaaba iska lahayd. Iraaqa ku jirta iyo maartay waxa ku jira Suuriya ku jirta, Falastiin awlayba haysatay. dhulkaan oo dhan annagaaba iska lahayd ilaa Masar ka soo bilaw Niil, wabiga Niil ilaa wabiga Furaad dhulkaas oo dhan Urdun iyo waxa soo dhan Iraaq iyo waxaasba annaga iska lahayd. marka waad u jeedaan nin walba marka meelo booda uu ku habsanaya. hadda maxaa soo baxay? jasiirad Denmark iska leedahay. Trump wuxuu leeyahay xoogan ku qaadanaa. inta muddo xileedkayga aan ku jiro jasiiradaas waa qaadanaa. oo u qaadanay jasiiradda
وجزيرة قطب قدينا وقوي كتالا أو برفة أو حلقة قرحضنا أي قرحون تاي أنا جينا عفعي استراتيجية دفاع واي وهذا يكون عفعي مع ذا إسكالي والضراب إسكالي وجزيرة يدو معمول حوصات له أو دنمارك معمول شو إسكالي مية أنا قادرين حوق عبد واي هذا ما أنت محوص صاري مارك روبي وزير كي ساري مهدي بد وكاقدنا دنمارك وربيع ما دولكي سيلي قدرا والله قدرا دادي تحوقا يا قادرا مركو والس حوقا إنها وشنتا لو حوقا واتاي داوديال مركنا وحين وجود بين قدر حيسيسة كذب معلومات كصابسن فنزويلا قبضنا مدحوينها كملجار كا وحي تري هذا الكنحي ترام من نحا الدور بايد كجاي كلتو wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta waa maalinimo Arbaca qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu maraynaa hadaba gabadhii loo dhaariyay madaxweynaha ku meel gaarka Venezuela horeyna u ahayd madaxweyne ku xigeenka dalkaas ayaa waxay soo saartay hadal aad u adag dhagaha ku shubay tiri ninka leeyahay Tramo wadankan u soo baxbaxsanaysid shidaalkiisa inaa dhuuqda arabtid ciyaar ma ahna tiri wadankan nina adigu soo magacawday oo camiil waxa la daba dhilif ninka adiga ku adeega nin Venezuelan hada soo magacawdo ama naag meesha keento wallahi liisa ku shaqeynayni tiri camiil meesha kama shaqeynaa adiguna madaxweynihii la baxday dadkii way soo taageen dadkii oo dhan Maduro ah maxaa ka cunay madaxweyne Maduro soo ma ka haysanaa nin walba wuxuu u arkaa inaa hantidiisa dhacays sidii loo jabhadeen karo la isaga ka dhicin kara la isaga ka dhicinaya oo yaabay oday iyadii hadana ha weeraro ha soo ka haystay leeyahay warbaahin marka hadana markuu iyada soo ka haysto midka kale lagu bedelo hadana sidii soo istaa marka maanta oo dhan ma hawlgala galay ma qof soo ka hayde awal Maduro ahayd hada gabadhi hada marka iyadii hanjabaad ku bilaabay wadadii Maduro raacaysa waxa rabta keenay laakiin waxaan ku sheegay tir meeshan daba dhilif ku shaqeeya halkan madax ma ka noqonayo hadaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay gabadha madaxweynaha ka Venezuela ku meel gaarka ayaa waxay sheegtay inuusan xukumi doonin Venezuela camiil dibadda ka yimid ama daba dhilif dibadda laga keenay shacabkeenu isma dhiibi doonaan waxayna diyaar u yihiin inay difaacdaan wadankooda tir adeero soo socdaa gabgab ma jirto dhulka inaad timaado shidaal qaadataa la iska rabaa nimankan marka waxay diyaar u yihiin inay iska dhiciyaan nin walba qorigiisa inta qaato walaga awood badnaan karaa gantaal diyaarad waxa la rabaa lagu sameyn karaa laakiin Afghanistan ba duurkay galeen waa dagaalameen ilaa markii dambe Mareykan soo cararay Iraq sidaas oo kale way dagaalameen Vietnam waa ogeydeen marka waxay yiraahdeen annaguna iska ka dhicinaynaa laakiin ugu weeraadeen dhagaha ku shubo daba dhilif camiil ah oo meeshan aad keensatay meesha waxa kama gooynay shacabkeenu isma dhiibi doonaan hadal adag ay kula hadashay ayadii marka hadda wuxuu ku bilaabay inuu hajabo sheeko walla adduunka ka socota barnaamijkaygii ugu horeeyay waa naga taa wixii warar soo kordha barnaamijyada dambe ayaan kula wadaagi doonaa saxaabay fakarkiina waa muhiim noo soo qora la garay oo shir garay barnaamijka nabadgelyo